سلامة مسلمك ku salaam aniga waxa leeyahay Xuseen Axmed Dirshaal yiraahdo mas'uuliyiintan wax badan baan isarag sida Cabdi Saciid rag ka mid yahay iyo Budhukayo wax badan baan isarag aan waxaan ahay ribadiyaha waxaan joogaa Jiidaas wax badan baan nabadan u gogol dhignay kana shaqeynay baadina cilmi haata ka hor meel meegaago halka jidha oo qori cad meeshada ninkan ugu yiri kumid iyo garacad ka yimid biyo ugu shubay aniga Xuseen Axmed Dirshaal yahay waxaan la iska laga helayaa umaleeyna sangudu hadda ka hor ragii nabada gogasha u dhigay baan ku jiray dhanka maamulka dhanka Puntland iyo Galmudug waxaan ku dhaarinay inay nabada naga siyaasaday waa naga qaadeen markii mid marka qofka islaamka marka la salaamayo gacanta cad baa lagu salaama mid ay naga qaadeen gacanta jirjirka ah reer Galmudug iyo reer Puntland wax ogaal baan ka ha naga siyaasaday inaan suuqay anigu intaan reebadiyaas wax ka celinahay 2 sano baan wax ka celinahay meeshaas taagnaa inta kale oo yaal kora wax kala celinahay oo cid isku darsanay 2 sano agoor riba waad wax maamul la yiraahdo ma celinayn agoor riba waad rag odayaashan ku jira sida Cabdi Saciid maalinta loo yimid oo kale taas iyo si ka badan baa xooluhu isku dhaxgaleen lamana waad dhamaan haday fadlan tahay haday kalaba waxa la wareegay hadda markii roobkan la u daay xilka waxa la wareegay reer Puntland iyo reer Galmudug iyo federaal baa la wareegay oo maamula wax odayaal beeleeda oo ama dhanka reer Puntland naga la shaqeeya ama dhanka Galmudug ka shaqeeya oo odayaal ma jiraan oo xoolo kala cish waa xaqiiq rasmi ah hadda ma jabi godeed baan ka soo guuray nin reer baadiya oo reer Puntland ka celin nin reer baadiya oo reer Galmudugna ka celin xaqiiq rasmi ah halkan hadda nimana ka celin waxa weeye waxa moodaa xogaa nabadu inay siyaasadaysan tahay annaguna saas oo gaabsaday way ogna waana sarafan naqana rag reer baadiyaha waxaan isku dhaarsanay nin xabad ku rida inuu soo jirin ilmaha in la xadado dadka la wacdi galiyo macalinku waa jooga maalintii sangadii rag wacdi galinahay ku jira waxaan aragnay rag maamulka ahaa inay gabdho masaakiima oo dameer wata inta hor istaagay yiraahay ma kacbi ka dhaan ceelka Puntland jooga waa ceel Soomaali waa ceel dawladeed ceelka Galmudug joogtaana waa ceel Soomaali waa ceeshi muslimiinta inay kacbaan way nabadu siyaasad waxay ku tahay in maatadii xoolaha laga ooshay oo naagii iyo dumarkii iyo rag faraha banaana ana kamid ah rag liilaabo sa islaam baa ila damareysay wallahi iyo oman baa la soo ceshay waa ceelkaas samsamada la yiraahdo wallahi waa mid looxa ku taal dariiska ciidanka laha baana taagan waa reer Puntland way reer Galmudug waxa iga soo udhay midkaan ceelka carrigudushood ayaga qoday waxa iga soo udhay hal faraar leeyahay mid baakamiin la iyo xagga inta ka cabbi karin waan nabadana naga siyaasadayna waa meeshan ku dhaaranay way waa wiilashadii waa walaalahay maamulka xoogaa waa dhutinahay waxa kale way xoolo kala celinta geela ninkaas uu sheegayo afarta waa runtiis 4 bilood ka hor baa filay baan degnaa geelaas markaan maqalnay maamul haday taana baaka beeshuna way ogtahay maamulkana way ogi oday marka jooga ma jabihi oo ama maamulka la shaqeynay golol hal tagtay golol baa geeli sutay asagoo inuu og yahay malaynay kaba soo qaban karo oday maamul baa gacantiisu gaadha Cabdi Saciid maamulka kaba ogaa la waa la shaqeeyaa inuu yahay iga soo qabo hasha golol joogta anaga odayaasha hasha ninkaasi goobahaya golol iyo ka koonfur bay jidhaa waa xaqiiq dhab weey ma joogto halkan kana soo qaban mayno wala isii joogin iyo bil iyo tal anigu waxaan ahay hadda waxaan deganahay la saacada la degan waxaan wada deganahay nin Cumar Maxamed ha wada degan ana baliga halkan ka deganaa sageeshay ku degan hebel baa isku naqaan isdikarayn isdili mayn qoomiyada isku caayimay diin isku caayimay ilaahay baa nagu rasuulkiisa baa nagu intaas aan hadda 3 sano sii mar 3 sano intaas ay degan yihiin baan degnaa wali qof cunsuriyad wax weeyir ma arag laakiin waxaan dareemay maamulka Galmudug iyo midka Puntland ba in Galland in loo kala waardiinayo see shacabka isku dhaxgalnaa war see isku aaminaa mas'uuliyad hadda sheeganaysan waxaan rabnaa annaga mas'uuliyadeeda qaadaynaa xoogaa ceelka aan natay karin kan ma tay karo waaqana hadda ninka haya telefoonka waaqana ku soo aroor buu halka aan degnaa wallahi waxaan rabay billahi markii roobku daadii roob gal inaan ku arooraan oo mid loo xaq ku taal dhutinta yarta oo maamulada xaggeeda oo ay midha mushaar ku dilalahayaan ilaahay xaggiis midha waxay la tacaashan oo kaba qaban reebaadiyana walaayaa ceel ma furto maamul ma jabiyo weerari mayno ilaahay baa nugo marka توتيب والله ما قاعد واقع لكن هذا شيء ما هيو دولته كم دي هذا كورنا واحد أنا واحد لا شقين ما إنه رجل مذوق واحد لا شقين إنه رجل بلاد واحد من رجل تيفي يقضوا إنه كان مكوتشري
adinkaa dawladda midda labaadna adinkaa ku soo baxay nabadii aan rabnay 2 jir maraysa 3 jir maraysa 4 jir maraysid markaan lambar 2 baa lagu soo ceshay lambar 2 nin walba waa lagu soo ceshay laga daayo walaaya nabadda meesha ay lagu soo ceshay laga daayo waxaan ognaa hadda geel la dhacay geel u horeeyay oo maamul soo cesho waxa ila joogay ninkan maalintii ku horeysay odaga cadda dhanada jeexana ku shir jidaalka dambeedkii meeshaas wiil inta tooliyaa geel looga qaad baa looga qaad waxaan hayaa federaalka nimanka ah inay ka cesheen lacag in lagu siiyay wallahi midka ila degan baa ii sheegay inay isaga qarsoona oo maamul federaal isku sheegaya oo lacag ku siiyay oo waa ku dayba meesha hay'adda khilaafaadka waa naga agmarsiiyay 2,000 baa lagu leeyay kuwa maamulka sheeganaya lacag ku siiyay oo soo kaxeeyay geel iyo loo isku dilay oo xabada ku talaana loo keenay bartaana ka soo kaxeeyay anagu dhaliisha ugu xun wallahi baan weyn ka qaaday aanan dhaliilay waligiis rag wax qaadi jiray oo wallahi oo billahi oo tallaahay ilma riyaa hadaa reebaadi aad ku dhalisheed maamulkan ku dhalin waxa kale ugu dhalin inay nala shaqeeyaan tuuga midka gol joogay midka kala gudiga telefoon ba weyseena maamulka haduu rabo oo yaasha la shaqeeyaa maamulka soo beel kala sameeyay meel kasta soo beel kaba salaysna waa run maamulku beel buu ku salaysan yahay oo lagu door inay oyaasha la shaqeeyaan laba jifo ma kala ahin laba diibad ma kala